فنانكي ويناي عبد تهليل ورسمه هيلادي كوسغال بقول كنتوني لبدي أيو كل شيء وردير أبيه تهليل ورسمه عقال وحا وكتر سنان جري عيدن كحوق الدلك الصوماليات وحين صاحب بقارة أهين فنانكي عبد علي بعلوان عبد تهليل ورسمه دبياقدي سنة كي كوسغال بقول لحد جديد دي أيو قاضي هيستيسي أوجه الرئيسي أو أهيد جرجر كي در تابان جيجا الله أو إرياد ذا اللي في أبوان سلب عمر أحمد عبد تهليل waxa uu kolkii hore bartay tumista gidaarka waana sababta loogu bixiyay magaca cabdi gidaariste hilaadi 1969 isaga oo markaa wali baranaya tumista kabanka ayuu Axmed Salebaan bidda waxa uu dhiibay heestiisii labaad oo cabdi tahliil qaado kuna luuqeeyo taasi oo ahayd heesta onkod oo isagu la xameeyay cabdi tahliil nafhaantiisa sanadkii 1971 oo ahayd markii la furay tartankii heesaha hirgalay ayuu cabdi tahliil warsame ka mid noqday hobollo وترتميسي هيسيدا واي كميدا هايين محسن عبدالله او يساقو هوري اوغي هيسي جري إثيوبيا نور عبدالله عمر حرقو حسن آدن سمستر عبد حسن ديغي موسى إسماعيل قليل يرقيو او للربي إنو يكون بيران مركا اياقا كوحدي وابري لكن كوحدن ترتميسي حسن آدن سمستر او كليا ايا مركاس وحا او كغبيري كوحدي وينيد وابري عبد تهليل قار ايو هيسي جري دابدد عبد تهليل ورسمي maaliyadda ayuu shaqaale ka noqday wuxuuna maamulka xisaabaadka ka noqday gobolka bari ee Puntland wuxuu ahaa nin fan ahaan isku filan oo hadii uu ereyo helo isagu laxan ka samaysan karo muusigana saaran karo sidoo kalena codkiisa asagu nafsad ahaantiisa ku qaadi kara cabdi isla sanadihii bilowgii fankiisa wuxuu qaaday dhowr heesood oo aad u caan baxay jirjirkiya darta oo uu sulub Umar alifay onkod oo Axmed Salebaan bidda alifay sida faras bulaalo oo Ismaaciil Sheekh Axmed Cagaf curiyay يحيى أو يسقون محمد آذن دعر سمية وردير أو حسن قتال سمية يجارا بدان أو جامع داد سمية عبد التهليل انت دبدت وحا أصوص عليه سب بدن أو كلي قاضي كل خلقت قيبة بدن أما قار كم إذا هيسيه سوى هوين كل اللوقيريين سيدا فاضوم الدور أحمد واي قبل كبري وذد كوضا النولايين مروى محمد عبدي يشن كرون أحمد يوسف سقل عبد التهليل ورسمه وحا أوها فنانين تيكاقب كشي شركي صوماليات أن نبدل لوقور راديني سنة كي لبضكن halkaas ayuuna ka qaaday halkaas ayuuna ku xanuunsaday muddo 20 sano ah ayuu marxalado kala duwan soo mariyay wixii ka dambeeyay intaas cabdi waxa uu qaaday oo ahayd hees wadaniya taasi oo eriyadeeda ka mid ahaayeen taariikhaha isguray gudubta xilliga hadii maanku guray cabdi tahliil waxa uu dhalay 17 ubad ah oo 13 ka mid ay noolaayeen afar ka mid ilmihiisana waxay ahaayeen fanaaniin sida maslax samsam muna iyo axmed cabdi tahliil warsame عقال بشي جون لبضو كون إلا باتنكي هران تيدي أيو كو جيريو دي مقالة عاصمة دي مقدشو كدي مدو هالكاس كو حنو سنة إيبها ونحرسته